السلام عليكم جماعة wanaagsan ku soo dhawaada qodobada wararka ciyaaraha ee subaxnimo. Real Madrid oo loo soo bandhigay xidig u ciyaara kooxda Bayern. Wargeysyada Isbaaniska ayaa shaaca waxay ka qaadeen in wakiilada ka socda mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Bayern ay soo bandhigeen adeega xidig u ciyaara kooxda Bayern inuu ku biiro kooxda Real Madrid. Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaaniska ee Mag, adeega ciyaaryahanka kooxda Bayern ee Leroy Sane ayaa la soo bandhigay kooxda Real Madrid xagaagana. Waxaa wargeyskaasi xusaya in intii lagu jiray wadaxaajoodka bixitaanka xidiga Luka Kovacic ee Fiorentina in Leroy Sane loo soo bandhigay Real Madrid maadaama ay labada xidig ay wada wadaagaan hal wakiil. heshiiska laacibkii hore ee Manchester City ee Bayern ayaa dhici doona xagaaga 2025 waxaana la sheegayaa in wakiilka Sane ay ka codsadeen madaxda Real Madrid in ay qiimeeyaan xaaladda iyo suurtagalnimada in xidiga reer Jarmal uu dhaqaaqo Santiago Bernabeu iyadoo aan lagu xirin wax shuruuda. geeska Marco waxa xusaya in Real Madrid ay ku wargelisay wakiilka Leroy Sane in haatan kooxda ay diiradda saarayso ciyaartoyda ay soo iibsatay mudnaanta koowaadna ay siin doonto ciyaartoyda kale ee kooxda inay ka takhalusto si xidiga kale ay la soo wareegto kooxda Real Madrid. kooxda Barcelona oo qaadaysa talaabo ay Frank de Jong ugu qasbayso inuu ku biiro kooxda Manchester United. sida laga soo xigtay wargeyska Sport, Barcelona ayaa u sheegtay xidiga Frank de Jong inuu iskaga tago kooxda kadib markii ay kala heshiiyeen saxiixiisa kooxda Manchester United. labada kooxood ayaa heshiis buuxa ka gaaray saxiixa xidigan qadka dhexe waxaana ay Barcelona ay sheegtay xidiga inuu ku biiri doono kooxda Manchester United. Barcelona ayaa xidigan ku reexaysa inuu ku biiro Manchester United xilli xidiga weli uu diidan yahay inuu ku biiro kooxda Manchester United. wargeysyada qaar ayaa waxay sheegeen in Barcelona ay qaadayso talaabo ay xidiga ugu qasbayso inuu ku biiro kooxda Manchester United maalmaha soo socda. kooxda Barcelona ayaa xitaa Frank de Jong ka saartay liiska xidigaha u duulaya USA kuwaasi oo halkaasi ku qaadan doona isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub. waxaana Frank de Jong uu diidan yahay inuu ku biiro kooxda Manchester United. Arsenal oo wada hadallo kula jirta kooxda Manchester City iyadoo ka doonaysa xidiga kooxdaasi ee Zinchenko. kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in wada hadallo rasmi ay la bilaawday kooxda Manchester City kuwaasi ay ka doonayaan saxiixa xidiga Alexander Zinchenko. Arsenal ayaa suuqa ugu jirta daafac bidix sababa la xiriira dhaawacyada badan ee soo gaara xidiga Tierney. tobraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa taageero weyn u ah xidigan Manchester City ee Zinchenko maadaama uu la soo shaqeeyay markii uu caawiyaha u ahaa tababare Pep Guardiola. xidiga Zinchenko ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay isaga tagida kooxda Manchester City haddii ay la soo saxiidaan xidiga Marc Cucurella kaasi oo ay Manchester City xiisay u muujinayso. sida laga soo xigtay wargeyska The Athletic, Arsenal ayaa haatan wada hadallo rasmi ah la bilaawday Manchester City iyaga oo kala heshiinaya saxiixa xidigana. Manchester City ayaa dhankeeda diyaar u ah inay iska iibiso xidigana reer Ukraine haddii ay helaan qiimo macquul oo lagu iibin karo xidigana. Manchester oo gacanta ku soo dhigtay saxiixii saddexaad ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda. kooxda Manchester United iyo tababare Ten Hag ayaa u muuqda kuwa gacanta ku soo dhigay daaficii kooxda Ajax ee Lisandro Martinez. Erik Ten Hag ayaa bartilmaameedkiisa koowaad ah xidigan reer Ajax kaasi oo doonaya inuu ku xoojiyo kooxdiisa Manchester United. Ajax ayaa horey uga cagajiiday inay iibiso Martinez balse ciyaaryahankan ayaa ku riixay kooxdiisa inay dhageysato dalabaadka Manchester United kadib markii gebi ahaanba iska diiday ku biirista kooxda Arsenal oo gebi ahaanba diiday inuu dhankeeda u aado. sida hadda uu sheegayo qabiirka dhinaca suuqa Fabrizio Romano, xidiga 24 sano jirka ayaa qarka u saaran inuu la midoobo tababarihiisa hore ee kooxda Ajax isla markaana heshiiskiisa waxyaabo yaryar ay ka harsan yihiin jimcaha maantana la dhameystiri doono. Ajax ayaa hore dalabaadyo uga diiday kooxaha Manchester United iyo kooxda Arsenal, laakiin dalabkii ugu dambeeyay Manchester United ee gaaraya 46 milyan ayaa aqbashay kooxda Ajax iyadoo Manchester United ay gacanta ku dhigayso daafac muhiim ah. Lisandro Martinez ayaa noqonaya saxiixii saddexaad ee Manchester United iyadoo Manchester United hore la soo wareegtay xidiga Malaysia isagoo si rasmi ah ugu biiray kooxda, inkastoo xidiga Christian Eriksen uu tijaabada caafimaadka maray laakiin weli aan heshiiskiisa lagu dhawaaqin.
guud ahaan waa naga intaa qodobada wararka ciyaaraha.